dhibaatada tahriibka waa mid la wada garwaaqsan yahay. Xitaa dhalinyarada maalin walba ku dhaqaaqa falkaas khatarta badan waxay dareensan yihiin cawaaqibka uu leeyahay. Haddana sidaas oo ay tahay way u bareeraan. Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, sanadkan gudihiisa oo kaliya in ka badan 800 oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay badda Mediterranean-ka, halkaasoo ay kumanaan kale ku nafwaayeen sanadihii la soo dhaafay. Liibiya ayaa noqotay marinka ugu halista badan ee ay hiigsadaan tahriibayaasha ka tegaya Soomaaliya iyo meelo kale oo ka tirsan isla qaaradda Afrika. Tahriibayaasha ugu badan waxay ka baxaan dalalka ku yaala bariga Afrika ee ay Soomaaliya ka mid tahay, halka kuwo kalena ay ka safraan qaybo ka tirsan galbeedka Afrika. Meesha ay isha ku hayaan waa xeebaha Liibiya si ay doomo uga raacaan ugana sii tallaabaan qaaradda Yurub. Laakiin dhibaatadooda oo ka bilaabata safarka ay dalalkooda uga soo ambabaxaan ilaa saxaraha rafaadka ay ku mutaystaan iyo xitaa ciqaab badan oo ay Liibiya ku maraan ma aha mid la soo koobi karo. Waxaa nooc ganacsi oo adoonsi ah ku bartilmaameedsada mukhallasiin loo yaqaano magafayaal oo tahriibayaasha ku sii suga Suudaan iyo Liibiya. Markii la xiro oo la jirdilo waxyeello badanna loo geysto ayaa kuwooda nasiibka leh lacago madax furasho ah lagu sii daayaa. Kuwa kalena sannado badan ayay xabsiyada Liibiya ku rafaadsan yihiin iyagoo aan wax rajo ah lahayn. Waxaa u sii dheer safarka ay ku galaan doomaha daciifka ah ee ay ku wajahaan mid ka mid ah badaha ugu halista badan caalamka, oo ah badda Mediterranean-ka. Marka laga soo tago naftooda oo ay ku waayaan inta ay tahriibka ku jiraan, intooda badbaada waxay indhaha ku kala qaadaan xaalad aysan marnaba filanayn. Dhib kasta oo ay maraan kadib, marka ay Yurub tagaan waxay la kulmaan wax ka duwan riyadii ay ku haminayeen. Badankood waxaa loo diidaa sharciga, waqti badan ayayna ku qaataan inay dalba dalka kale uga sii gudbaan. Kuwooda sharciga hela waxay xaaladooda ku soo biyo shubataa shaqo la'aan. Qaarkood marka ay sharci iyo shaqo toona ka waayaan Yurub, waxay go'aansadaan inay dib ugu soo laabtaan dalalkii ay tahriibka ka soo bilaabeen. Markii aad weydiiso waxa ay ka faa'iideen tahriibkii maskaxdooda degay, waxay kuu sheegayaan hadal markii la soo koobo noqonaya, anigoo og ayaan u bareeray balse waan eeday. Dhibaatada dhinaca jirka ee laga dhaxlo tahriibka waxaa ka sii daran mid dhinaca maskaxda iyo dareenka ah oo ay la kulmaan dadka tallaabadaas qorshe la'aanta ah qaaday. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah in uu dhinto damiirka qofka, sidoo kalena maskaxdiisu ay awood badan lumiso. Uurku taalada iyo xusuusta xun ee uu qofku tahriibka kala kulmo ma aha mid weligiis ka harta, xitaa haddii muddo dheer ay ka soo wareegto. Su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, dhalinyaroy muxuu tahriib taraa? Bal aad u tasho inta aadan tallaabadaas qaadin. Barnaamijkan waxaa idiin soo gudbisay hay'adda Kood.